aynu kuwa jooga bariga iyo kuwa galbeedka jooga sidii 390kii sidii 190kii lagu wada midoobay Soomaaliland in la soo celiyo midnimadii Soomaaliland oo xoog la saaro inaynu bariga maamulkeena iyo dhaqaalaheena iyo horumarkaba la geeyo eergooba ma cabanaysa xudun way cabanaysa taleex dagaala ka socda hadii aan dhulkaasi aanu maamulkeenu gaarin haddaanu sharcigeenu gaarin itraaf elimayno markaynu gudaheena hagaajino ayaynu itraaf dibadda weydiisan karnaa laakiin markaan dibadda taana u socod badano waxa leeyahay halka waxa ka kacay nin reer Laascaanood iyo nin reer Awdal waxa leeyahay anagu ma ogolin haddaanayna ogolaan Awdal iyo Laascaanood ma layna ogolaanay waa inaynu is ogolaano dadkeena aan midaynaaba wey markaasaynu itraaf elinaa markaasaynu wax noqon karnaa markaasaynu horumar noqonnaa waxaan ku daray oo kale waxa weeye waxa sicir bararka maanta dhacay wuxuu dhabarka ka jabiyay dadkii masaakiinta ahaa maanta dadkeeni way gaajoonayaan laano sicir bararkii baa ka xoolaha keenaya soo sii qaaday wuxuu dhulka dusha ka saaraya wixii ka ay ninka miskiinka ay gabadha miskiinada dusha ka saaraya marka waa inaynu si sicir bararka loo joojin lahaa maalintu waxa maqay wasiirka oo leh uu gacmuhu ka baxay wax adduunka ka baxa ma jiro wax kasta waa la qaban karaa وحقوقه سعر بري فاروق كم كلية حبوب فراك كبح وين الحل الله هلا سعر بركة ولا هو مهد سنتين هذه ما يجيها بليانية ولا توسع يلا هني شبنا واصعونا إن شاء الله تعالى إلا اعتراف كأنه يلا إن شاء الله تعالى وكم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته